haddaba haddii aad isku aragtay calaamadahani aan halkani inkugu sheegi doono ogow in uu hormoonka loo yaqaano estrogenka uu ka hooseeyo. waa maxay markaa calaamadahani? astaanta koowaad haddii aad isku aragtid oo ah in uu estrogenkaaga uu hooseeyo waxaa waaye daciif mise daciifnimo oo dhanka lafaha kaaga imaanayso. daciifnimadani mise waxa loo yaqaano osteoporosiska lafa jajabka iyo osteopenia waqtiga uu hormoonkaaga estrogenka uu hooseeyo aad isku arkaysid. astaanta labaad aad isku arkaysid dhanka estrogenka hooseeyo kaaga imaanaya waxaa waaye waxa loo yaqaano weight gainka, miisaankaaga oo kordho oo miisaankaaga oo kor u ziyaado. kanina waxa kuu keenaya waxaa waaye hormoonka ayaa ka hooseeyo wuxuuna kuu horseedaya waxa loo yaqaano insulin resistance-ka. sheyga saddexaad mise astaanta saddexaad aad isku arki kartid waxaa waaye waxa loo yaqaano dryness-ka, xibinta taranka oo qaleel ku noqoto oo maaragtay dhacaankii ka yaraado, dhacaankii oo xibinta taranka oo dhammaado. tani waxaa kuu keenaysa hoos u dhaca oo estrogenka oo ka hooseeya ayaa ka qayb qaadan waxa ka qayb qaato dhisinta xibinta taranka iyo qoyaanka siiyo waa estrogenka. xilliga uu hooseeyo hormoonkani waxaad isku arkaysaa qoyaankii oo yaraado, dhismihii oo maaragtay xibinta taranka oo isbedel ku dhacayo. sidoo kale waxa aad astaanta kale aad dareemi kartid aad isku arkaysid waxaa waaye waxa loo yaqaano kuleel zaa'id ah inuu jirkaaga la soo siyaado. kuleelkani oo kaaga imaanaya hoos u dhaca hormoonka gaar ahaan waxaad isku arkaysaa waxa loo yaqaano hot flasheska, jirkii oo idil in aad kuleel zaa'id aad ka dareentid maadaama hormoonkani waxa uu ka qayb qaataa controllinga thermoregulatory centerga wax loo yaqaano oo maskaxda laga helo oo maskaxda ku yaala centerkani oo control gareeya jirka kuleelkiisa. xilliga uu maaragtay uu ka hooseeyo marka hormoonkani waxaad isku arkaysaa hot flasheska, dhidid badan habeenkii iyo intaasi in ka badan, kuleelka in aad dhibsatid, kuleel yar haddaad gashid inaad dhididaysid adigoo idil. sidoo kale dhanka wadnaha haddaan tagno wadna garaac zaa'id baad isku arkaysaa. astaanta kale oo markuu xilliga uu ka hooseeyo hormoonkani waxaa waaye wadna garaac zaa'id ah waxa loo yaqaano palpitationka ayaad isku arkaysaa. sidoo kale waxa aad dareemaysaa haddii dhiiggaaga la baaro waxaad isku arkaysaa difinta mise saliidda midda kolestaroolka midda xun inay kor tahay oo loo yaqaano LDL-ka in uu sareeyo, HDL-ka oo saliidda wanaagsaneed oo jirkana in ay ka hooseyso. sidoo kale dhanka timaha haddii loo yimaado hormoonkani waqtiga uu ka hooseeyo calaamadaha aad isku arkaysid waxaa waaye timo daadasho badan, timihii inay soo daataan. dhanka maqaarka haddaad fiirisid still waxaad isku arkaysaa dryness, inuu maqaarkii oo idil uu qalalan yahay uu maaragtay xadkiisa uu dhaafsan yahay, wrinkles inaad isku aragtid oo maqaarkii asigoo idil oo wrinkled uu noqdo. sidoo kale dhanka caadada haddaan tagno oo gabadha caadadeed haddii la fiiriyo waqtiga hormoonkani uu ka hooseeyo waxa aad isku arkaysaa waxa loo yaqaano caadadii oo idilba inay kaa lunto oo caadadii 2 mar 3 mar mise waqtigii ay kaa lunto ayadoo idilba ay lunto mise ayadoo idil hadday kugu dhacdona ay yar tahay iyo waqti badan inaad caadada iska waysid. dhanka hormoonkani hadduu ka hooseeyo waxa uu kugu ridayaa ogxaantii oo idilba in la soo saarin, ogxaantii oo idilba ee maaragtay bacrimin ay diyaar u ahayn waxa loo yaqaano anovulationka. sababta ka dambeysana waxaa waaye xilliga uu hormoonkani uu hooseeyo estrogenka uu ka hooseeyo waxaa dhacaya hormoonadii kale inay jirkaaga ay ku bataan oo ah FSH-ka, LH-ka in ay jirkaaga ay ku bataan. gaar ahaan cagsi bay isku yihiin FSH-ka iyo estrogenka. xilliga uu FSH-ka uu sareeyo estrogenkaaga wuu hooseeyaa. marka labadani hormoon ayagoo cagsi isku ah maxaa ka dhalanaya marka? waxaa ka dhalanaya in ay ovulation oo idil kugu dhicin oo bacrimintii oo idil ay dhicin, caadadii ay kaa wareerto, hormoonadii caadadii oo idilna ay sidii ay ku wareeraan. sidoo kale waxaad isku arkaysaa dhanka rabitaanka gogasha in uu yaraado oo hoos u kaaga dhaca. xilliga aad gogasha aad rabtidna mise galmadii aad ku jirtidna in aad xanuun badan aad dareentid. intani iyo in ka badan ayaad isku arkaysaa xilliga oo estrogenka uu ka hooseeyo. marka maxaa lagaaga baahan yahay? xilli walba isku day 3 month 4 month 5 bilood 6 bilood iska baar hormoonkaaga
mise hormoonadooda oo idil check up ku samee. waad ka faa'iidi doontaa sababtoo ah waxyaalo badan oo markii hore kaa qaldanaa ayaa hadda aad ku badbaadaysaa, aad ogaanaysaa. waxaan idinkaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.